Hi, how are you doing today? hadalkiisa wuxuu ku bilaabay how are you doing today see tahay maanta I'm doing well, thank you. waxay ugu jawaabtay I'm doing well waan fiicanahay thank you mahadsanid How about you? how about you see tahay adiguna I'm good too. I am good too aniguna wanaagsanahay sidoo kale So, I was thinking about the differences between village life and city life. wada sheekaysigu wuxuu ku bilaabay markaa I was thinking about waxaan ka fekerayay the difference between kala duwanaanshaha u dhexeeya city life nolosha magaalada and village life iyo nolosha tuulada What do you think about it? wuxuu yidhi markaa what are you thinking about it oo ay tahay micnaheedu maxay kula tahay Oh, that's an interesting topic. waxay tidhi iyadoo hadalkeedii sii wadato markaa that is an interesting topic taas waa mawduuc xiiso leh I personally prefer village life. waxay tidhi markaa I personally anigu shakhsiyan prefer waxaan doorbidi lahaa village life nolosha tuulada Because it's more peaceful and closer to nature. waxay tidhi markaa because maxaa yeelay it's more peaceful aad ayay u degan tahay and close to the nature waxayna u dhowdahay waxyaabaha dabiiciga markaa What about you? gabadhii markaa waxay ku tiri ninkii warabooyo ka waran adiguna yacni ka hadal adiguna dooqaaga iyo waxaad jeceshahay Well, I have lived in both village and city, ninkii markaa wuxuu yidhi I have lived both village and city anigu labadaba waan ku noolaa and I think both have their pros and cons. ninkii markaa wuxuu yidhi I think waxaan u malaynayaa both labadooduba have inay leeyihiin their pros and cons faa'iido iyo faa'iido darraba Take a pause here. Did notice the words here. waxay kugu tiri markaa take a pause Georgie did notice the words here erayadan mid garanaysay Pros and cons. What does it mean? erayadu markaa waxay yihiin pros and cons what does it mean micnaheedu muxuu yahay way raacay It's mean, advantages, and disadvantages. waxay tiri markaa it is mean micnaheedu waxa weeye advantages faa'iidooyin and disadvantages iyo faa'iido darrooyin Now let's continue the conversation. waxay tiri markaa let us continue the conversation aynu sii wadna wada hadalka hadda